السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada Axlaam Cooking. maanta waxaan sameynayaa roodhi yar oo fudud. waxaan ka sameynayaa alaabta aan halka ku haysto oo dhan. halkan waxaan ku haystaa xabad beeda ama ukuna, iyo in yar oo sonkor ah, 2 qaado oo fixisa ah. intaasaan isku laaqayaa, isdhex gelinayaa. waxaan ku darayaa waa saliid, koobka haafkiisa oo saliid ah. haddaad rabto waad iska yareyn kartaa. waxaan ku darsanayaa in yar oo ah vanilla, iminkana waxaan ku darayaa caanaha waxaan ku daray 1 bakeeri iyo badh. waxaan ku daray waxa weeyaan caanihii. waxaan ku darayaa iminkana daqiiqdii ama burka waxaan ku darayaa 3 ilaa 4 bakeeri, 3 bakeeri iyo badh. waan soo xashayaa, isa soo dhex gelinayaa, markaas ayaan isku soo noqon doonaa insha Allah. waa kan markii aan soo xashay si fiican gacantaan isku soo dhex geliyay, sida quruxda badan ayaa inoogu soo baxay. waxaan ka maqnaananaa 45 daqiiqo ilaa iyo badh. wakaa 45 daqiiqo ilaa badh markaan ka maqnayn, sidaas ayuu inoogu soo baxay. halkan waxaan ku haystaa farmaajo aan soo yaryareystay, soo jarjaray. daqiiqda ayaad in yar saa uga soo qaadaysaa burkaad soo xashatay, kadib farmaajadii aan soo jarjaratay ayaad dhexdiisa ugu gelinaysaa. kadib si aanay afku kaaga furan, sida aan u jaray oo kale ayaad u jaraysaa. kadibna labada gacmood ayaad saa ku oranaysaa, iyaga oo dhan sidaas ayaan ku wada samaysananaa. kadibna sinxiga ofanka ayaan ku gurananaa, sinxigana saliid ayaad iska marinaysaa.
waa kuwa sidaa inoogu soo baxay markii aan soo dhamaynay. in yaroo kale ayaad ka maqnaanaysaa haddana anu waqti badan ayaan ka maqnaa, taraawiixda ayaan tegay, markaa sidaas ayuu aada ugu soo faxay. wakaa markii aan ofinka geliyey aan soo sameeyeyna sidaa quruxda badan ayuu kusoo baxay maasha allah. iminkana waxaan dhakada kaga daranaa condense milkigii ama caanihii macaanaa. inta qiyaastaada aad jeceshahay ayaad ku dari kartaa. sidaa quruxda badan ayay noogu soo baxday. markaan xabad ka soo qaatayna sidaas ayay noqotay. aan kala furay. videogani maanta halkaas ayuu ka egyahay. fadlan haddaad ka heshay like, subscribe channelkana aad baad mahadsantihiin.